kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar labaad iyo muuqaal cusub muuqaalkiina waxaan ku eegi doonaa isla markaasina aan dowladda ku saari doonaa mid kamid ah hablaha TikTokeriska isla markaasina aadka uga caanka baraha bulshada oo magaceeda lagu magacaabo Huda Amuun. haddaba Huda Amuun waxay kamid tahay bahda TikTokeriska isla markaasina sida weyn uga dhex muuqata aaladda loo yaqaan TikTok walaw ay bulshada Soomaaliyeedna gabadhaasi ku baratay arrimo aan aad u wanaagsan isla markaasina dhaqamadooda xixin balse iyada dhinaceeda marka laga eego ay u malaynayso arrin wanaagsan. haddaba ilmo Soomaaliyeed oo tiro badan ayaa ka hadashay arrimaha noocan oo kala ah, balse intaan aan idin soo gudbin muuqaal qof faahfaahsan walaal macna haddii aad ku cusubtahay kanaalka ansixinta wararka subscribe saaro, sidoo kale gambalka yarka furo oo rukuma channelka si ay kuugu soo dhacaan muuqaalada aad ku tirada badan leh aanu saacad walba bartani soo gelino. waa hagaag muuqaalkana la gaarsiina share gareeyo wala wadaag asxaabtaada. haddaba ku soo dhawaada muuqaalka faahfaahsan. gabadha lagu magacaabo Huda Amuun ayaa waxay kamid tahay gabdhaha TikTokeriska isla markaasina ku soo gala maryaha khafiifka ama qaawanaanta walaw ay seegeeda la sameeyay muuqaalo inkastoo bulshada Soomaaliyeed ay ku mashquuli jirtay iyada ugu dambeyntiina ay faraha ka qaadeen una maleeyeen inay tahay qof dhimirka ka waalan balse aysan ahayn qof inaba aan xanuunsanaynin. gabadhan Huda Amuun lagu magacaabo waa gabadh in badan laga dhex yaqaan baraha bulshada isla markaasina hadda ka haysatay bulshada Soomaaliyeed taageero waaliya walaw culimada Soomaaliyeed ay arrinkeedani ka hadleen isla markaasina ay kula taliyeen in ay soo xijaabato isla markaasina ay ka xishooto dhaqanka Soomaalida iyo sidoo kale diinta Islaamka oo ka soo horjeeda oo labaduba ay ka soo horjeedaan waxyaalaha ay iyadu sameynayso. haddaba waqti xaadirkan aan muuqaalka ku soo gudbinayo waxay kamid tahay gabdhaha ugu anshaxaya akhlaaqda daran leh ku jira barta TikTok walaw seegeedu uu garab ku siinayo arrimaha noocaas ee foolxumada. haddaba bulshada Soomaaliyeed baa jirta oo iyaguna si xun uga soo horjeeda arrinkeedan walaw culimada Soomaaliyeed oo arrinkan si xoog looga hadleen balse aan dhag jalaq u siin iyaduna u malaysay nacabkeeda oo ku mashquulka badiyay. haddaba inkastoo ay daawadayaalada arrinkan la quman yahay balse bulshada Soomaaliyeed oo arrinkaas run ahaantii ula muuqdo si khaldan qaarkoodna ay arkaan baarin saxsan oo ay ku dhiiranayaan inay sameeyaan arrinta noocan oo kala ah. aaladani TikTok run ahaantii waxay noqotay aalad muddooyinka ugu dambeysay fasahaysa bahda dhalinyarada ee aadka u isticmaashay gaar ahaan haweenka ama hablaha yaryar ee aan gaadhin da'da ismaamulka walaw ay TikTok noqotay aalad run ahaantii hablo badan oo culimo ah ka riday xijaabka isla markaasina u soo xidhay maryo khafiif ah. haddaba intaas iyo muuqaalku nagu eegyahay ee si shargare muuqaalka wala wadaag asxaabtaada dhammaan ummadda Soomaaliyeed aadayaan kugu mahadcelin haddii aad soo gaadhay dhamaadka muuqaalkani. waxaan ka codsanaynaa inaad ka mid noqoto bahda la jaanqaadka ansixinta wararka oo aad subscribe saari doonto kanaalka, sidoo kale aad rukuma doonto aad furan doonto gambalka yarka kumitii nadiif ah noo soo roobi doonto. mahadsanid.